الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي دمان بعد وحبرشة كوحسن هالكان waxaan ku xijinaa cashirkii labaad ee maadada chemistry-ga form 4ka lesson-kii shalay aan meeshan ku ekeenay aan siin rabnaa si dhamaystiran insha Allah nala socda alkenes line angle formula angle markii loo fahmo markaas straight-ka angle waxaan ku sheegnay inay noqonaa markaas line mid oo line dheer inay noqdaan represent kaasoo ku xusan markaas carbon bound ku xusan an angles iyo xaglahane represent by a carbon atom kuwaasoo ku shan agal walba meesha uu samaysan ay ku xusantaa markaas ay limit tahay carbon inay tahay a line ending meesha u dambayso markaas in space of represent space meesha u dambaysana ay ku tahay markaas CH3 inay ku taagan tahay CH3 inay ku taagan tahay group aan u taagan tahay meeshaas fiiri biliska sahan waxay u taagan tahay CH3 okay hydrogen atoms are not show hydrogenka laakiin lama muujiyo in line angle marka la joogo formulas ahaaneed waa ka markaas ball ahaan marka loo sawiro shalay aan soo sharaxnay kan sidoo kale sidaan waxaan dhaanay waa line-ki angle-ka asoo loo sameeynaa waayo kan waxaan leeyahay markaas condensed formula mid walba lagu sheego waxa loo yaqaan kan ball loo yaqaan oo sticker model la kan waxa loo yaqaan markaas process-kan ayadoo loo sawirayo waxa loo yaqaan line angle formula la qaabkan waxa loo yaqaan markaas condensed structural formula loo yaqaan okay ka sii socono isomerism ahaaneed ee loo qorayo alkeenka very alkane this one we can call it butane wuxuu kooban yahay 4 kaarbono iyo 10 hydrogeno 4 kaarboon very qaacidadu waxay la soo riibeen computer qalin nooma lahan insha Allah waa calculation qalinku week soo socda ku soo darnaa isku dayna waxaan dhaanay CH methane wuxuu leeyahay 4 hab hydrogen 4 hab kaarboon qaacidadooduna waxay tahay markaas C(N) H(2) N+2 meeshan ku taal markaas 4 hydrogeno inta ku taalo waxaad ku sameeysaa markaas 4 hydrogeno waxaad ku sameeysaa 2 ku dhufo 2 ku dar because of qaacidadu waxay ahayd C(N) H(2) N+2 n waxay u taagan tahay markaas number of kaarboonada numberada meeqa lagu siiyay 4 lagu siiyay 4 lagu dhufo markaas 8 waa 8 lagu dhufo 8 lagu dar 10 waay waa ka markaas 10 hab hydrogen meesha ka imaatay qaabkan waxa loo yaqaan markaas structural formula or expanded formula loo yaqaan qaabkan waxa loo yaqaan condensed formula loo yaqaan methane waaye process-kan ayadoo loo sameeyo waxa loo yaqaan isobutane loo yaqaan butane wuxuu koobnaa 4 hab kaarboon 1 2 3 4 oo kaarboon mudida iyo 10 hydrogen tirso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa ka 10 kaas hab hydrogen uu kooban yahay kaas waxaan leeyahay markaas structural isomerism aan leeyahay markaas qaabkan waxa loo yaqaan isomerism aan loo yaqaan structural isomerism marka iso waa ka marka ereyada aan ku sharax marka isomerism-ka isomer waxaan dhaanay from Greek word waa Greek word waaye asalkiisu wuxuu markaas isos means maxay tahay markaas equal isla eg mersin maxaan dhaanay markaas impart qayb kamid ah equal mersin maxaan dhaanay impart qayb kamid ah structural isomerism maxaan dhaanay markaas same molecular formula but different structural formula isomerism qeexdu u dhamaxa leedahay same molecular formula oo isku wada mid ah laakiin different structural formula qaab dhismeedkooda kala duwan yihiin atom different atomada way kala duwanaan karaan to different connectivity isku xirna way kala duwanaan karaan had fiiri waxaad fiirsaa kan iyo kan isku mid miya maya way kala duwan yihiin laakiin waa process aan sheegnay hal hab leen sheeg butane bis aan sheegnay inta process aan raacay isku wada mid maan markaas waxaan leeyahay hal habo oo bisheeg same molecular formula waa 4 hab kaarboon waa isku wada mid waa laakiin different structure shaqooyin ay qabtay meelaha ay ku dhigeen ab kala duwan bis isomerism intaas waaye aan ka sii socono expanded structure alkeneska number of isomerism numberada isomerism kaleeyeen methane waxa loo qori karaa isomerism ahaaneed hal qaybood hal wajiga loo qori karaa waa ku tusi doonaa waa buug noo keenaa sidoo kale ethane asna hal qaybood loo qori karaa propane hal qaybood loo qori karaa inta ka dambaysa markaas butane laba qaybood loo qori karaa pentane 3 qaybood hexane 5 qaybood decane 75 qaybood benta decane ayadana waxa loo qori karaa 4347 waxa loo qori karaa ecosine sidoo kale
intaas loo qori karaa three content ayadana sida intaas loo qori karaa intaan noun as markaas intaan all maxaa leeyahay markaas all noun intaan waa kuwa la yaqaano oo la soo barbaaray waa kuwa kala jir markaas fiiri markaas uu ku keenin doona soo processka loo marayo bentane haday waxaan kugu soo sheegay inta soo fiir meeshan hal mar dib ayay celiyo inta waxa ku saaran bentane oo loo qori karo markaas bentane waatana intii fiiri bentane sameyn oo loo qori karo markaas saddex weeyo am saddex process oo isomerism maxaan loo qori karaa saddex process oo ku furfiiri waa ka bentane fiiri waa kii shan hab carbon loo itoon hydrogen waa shan hab carbon waxa lagu keenay labo shan ku dhufo waa 10 lagu ku dar loo itoon hydrogen structure waxaan ku dhahay 3 structural isomer loo qori karaa process koowaad oo qoriis waa kana methane ethane propane butane bentane process labaad oo qoriis waxaan ina fiiri meth eth bro bu bent waa ka haye laba maraysa kii saddexaad oo imoo waxa leedahay markaas methane ethane propane butane bentane waa isomerism bentane meeqa wajiga loo qori karaa saddex qaybood loo qori karaa ama qaacido oo isomerism lagu helay jirto process saraaxane sidoo kale all of these dhamaan based on waxay ku saleysiin tetrahedral network waa afar geesood waaye hybridization kooduna waa sp3 waaye carbon not other arrange si kale loo hagaaji karo markaas on 5 possible intaan waji oo loo sameeyo markaas possible u macquulsan waa note xasuusno inta wuxuu ku dhaafay fiiri inta fiir methane ethane propane butane bentane waa isla processkii uu ku soo maray fiiri sidoo kale waxa kale dhigi kartaa methane ethane propane butane bentane waa isla kii xabo ay saxalkii xabo mar waxa ku dhigi kartaa uu ku dhahay kan had fiiri inta wuxuu kugu dhignaa carbon-kii labaad صح in markii lagu soo tiri carbon-ka labaad ku dhignaa kore ku dhignaa inta minus oo ku dhigi kartaa carbon-ka labaad inta ku dhigi kartaa isla carbon-ka labaad hadaan waxaan ku soo yeelin carbon-ka labaad waa meeshan ku dhigi kartaa sidoo kale process kale waxa u mari kartaa ina sameeysid fiiri meth eth bro bu bent ina dhahay hal xabo ina laba xabo adiga ku dhigisid waa sidoo kale aan etc iyo wixii kale la mid ah yeesay alkyl group markaas alkyl group waan qeexayna asana waxaan leenahay markaas alkyl groups waxaan leenahay a group waa kooxo of atoms atomyo that results kaasoo ku saar markaas when one hydrogen atom is removed markii alkane-ka laga saaro halka hydrogen atom waa kana alkyl group waxaan leenahay is atom waa atomyo that results waxa ku soo hara when one hydrogen atom markii hal hab hydrogen atomyo is removed laga saaro from alkane-kii hal hydrogen atom markii laga saaro qaacidiisana waxa loo qoraa C(n) H(2) n+1 alkane waxa loo qori jiray C(n) H(2) n+2 meeshan +2 meeshii ka aheeday hal hydrogen laga saaro maxaa ku dhahay meeshan fiir when one hydrogen atom is removed from alkane-kii hal hydrogen laga saaro meeshan laba keeno halka saar hal ku soo haray change n-kii marka haday aad soo qoraysay alkane meesha qoraysay n meesha u dambeeyso wuxuu isugu bedelaa ku dhahay markaas to yl isku bedelaa markaas alkyl eg to sulfur methyl ethyl propyne meesha dheesay methane ethane propane meesha dheesay alkyl group marka taas waxa leedahay methyl ethyl propyl leedahay cycloalkanes acyclic alkanes waa cycle waxa uu naqaana wareeg aan naqaana wuu noo qeexi doonaa iyo sheeg cycle alkane-ka half wuxuu leeyahay markaas 2 hydrogen atom law hydrogen atom uu leeyahay fewer than wuxuu ku siiyay markaas the open chain when open chain-ka remember waxa xasuusataa each carbon atom carbon walibana has inuu leeyahay markaas 4 bonds afar dabar inuu leeyahay are named by waxaan ku magacaynaa markaas by using anoo isticmaalayna markaas prefix horgalaha cycle anoo isticmaalayna cycle aan sheegna ka bacdina wuxuu yahay ku magacaynaa before the name intaan sheegin
the name of alkane magaca alkane the name of alkane chain silsilada alkane aan sheegin with the same number of carbon atom kaasoo wata markaas carbon atom oo isku wada mid ah tusaale noogu bixi doona ifir cycloalkanes carbons can also bounded waxa ku dabrimi kara together form ring inay oo sameeyaan markaas the ring inay sameeyaan dabar inay sameeyaan wareeg inay sameeyaan ring with only kaasoo leh markaas carbon iyo hydrogen oo single bound ah hal dabar la kala waxaan leeyahay markaas cycloalkanes adeeda cycloalkanes have wuxuu leeyahay general formula qaacida guud waxa loo yaqaan C sub n H sub 2 n plus n ma leeyahay waa asi wax isku formula yihiin isheeg asi waxay isku formulayn alkene isku formulayn the smallest cycloalkane midka ugu yar cycloalkane-ka is waxaan ku naqaanaa markaas cyclopropane waa because waxaan ku sheegay kan wareega loo sabiri doona oo ku tusi doona asne saddex xab kaarbono iyo lix xab hydrogen cyclopropane waa tan hadii fiir saddex xab kaarbono iyo lix xab hydrogen hadaan ku soo saar fiiri kan qaacida maxay ahayd C sub n H sub 2 n mono fiiri mar waxaan ku soo sheegay n halka uu taada waxaan ku dhahay number of carbon atoms waxa leeyahay markaas labo saddex ku dhuf meeq waay lix waay alkene waxa loo soo shaari jiray labo atiradan ku dhuf jirtay maxay noqonayaan lix lagu ku dar sideedaas ugu noqonayaan sidoo kale carbopropane is unstable molecule waa molecule unstable it is forced waxay leedahay awood to have a bound angles ay ku sameeyso markaas angalo of angle-keeda gaaris markaas 120 degree ay gaaris between inta u dhaxayso markaas the carbon atom u dhaxayso while they would normally waxay tahay markaas b waxay noqonaysaa normalkeeda waxay noqonaysaa 109 degree ay noqonaysaa the carbon atom have each wuxuu leeyahay markaas 4 electron groups uu leeyahay and should be tetrahedral wuxuu noqon doonaa markaas afar geesoole the only cycloalkane with a little or no stride waa wuxuu la xaqraa markaas mid yar noqon kara mise ma blaxaana aan cyclopentane wuxuu noqon karaa markaas asane 5 carbon iyo 10 hydrogen qaacidiis waxay yeeday C sub n H sub 2 bas n waxay u taagan tahay ku dhahay number of carbon had meeqa haysataa 10 5 lagu ku dhufo 10 bis waa ka aan cyclohexane ayaan soo kala noqonay C oo 6 ah hydrogen oo 12 ah ay kan lagu ku dhufo 6 lagu ku dhufo 10 lagu process qaacida ay raacay waa soo dhigi doona ayadoo qaacida proof ayadoo lagu sameeynayo inkastoo had anaga haysan wax sabuurad insha Allah weeygeed xigaan oo ku soo xiji doona ayagoo faahfaahsan waan soo dhigeynaa most of alkanes are not flat because maxaa yeelay they provide tetrahedral network in geometrical marka loo qoro fiir processka oo loo sameeynayo cycloalkane the smallest cycloalkane waxaan ku sheegay fiir meeshan the smallest midka ugu yar cycloalkane uu yahay is cyclopropane inuu yahay process uu noqdo aan ku sheegay markaas fiir cyclopropane wuxuu process-kana loo yaqaan afar geesood uu noqonaa hadii kana ugu yar oo loo sameey kara tusaale fiir methane loo ma sameey kara asaa wuxuu noqonaa hal xariiqmad oo dheer saas uu noqonaa bis hal xariiqmad uu noqonaa sidoo kale ma noqonayo ethane ma noqonayo ethane xariiqadan fiiri xariiqadan joogta iyo xariiqadan ay noqonaa afkoor ay furmaan isku xirmaan sidoo kale markaas waxaan leeyahay markaas saddex xariiqmood markay isku wada imaadaan ay cycle wareegaysan xariina cycle sidoo kale process-kan oo muujin kartaa meesha angles walba waxaan ku sheegay tiri inay u taagan tahay saan waa dhigi kartaa qaabkan waxaan u naqaanaa markaas condensate formula dheena qaabkan waxaan leeyahay markaas geometric formula dheena inta waxaan leeyahay markaas name-kooda inta ay loo sameeyaan markaas ball aan ay loo sameeyaan meel fiir ball kubad wuxuu taagan tahay CH carbon u taagan tahay carbon 2 carbon 2 carbon 3 inta kuwa waxay noqonayaan markaas CH3 ay noqonayaan sidoo kale kan waa kana afar geeskooti cyclobutane-kii waaye cyclobutane-kii waaye cyclopentane-kii waaye cyclohexane-kii waaye aan soo summarize galeen markaas of the Ayubac system of nomenclature toddobadan heerood ardaygii ila fahma waa alkeenka uu magacaabi kara wixii kala ka dambeeyo ma dhibi doonaan toddobadan heerood waa very important idea waa mid aad iyo aad ardayga intuu ku jiro magacaabid inuu ku dhex jiro uu laf dhawr u tahay haddii kan uu fahmi waayane waxaan hubaa arday wax magacaabi karo marka insha Allah inta aan isla fahanno horta ereygan asalkiisa aan ku sheego Ayubac system
I'd waxaa loo soo gaabiyey international, U'd waxaa loo soo gaabiyey union, B'd waxaa loo soo gaabiyey pure, E'd waxaa loo soo gaabiyey applied, E'd waxaa loo soo gaabiyey applied, E'd waxaa loo soo gaabiyey applied, C'd waxaa loo soo gaabiyey chemistry, C'd waxaa loo soo gaabiyey chemistry. Okay, sidoo kale lambarkii koowaad marka qodobada aan isla eegna fiiri. Lambarkii koowaad fiiri, find markii aad wax magacaabayso way, find raadi, the name magaca, find waxaad raadisaa the name magaca of magacaasoo markaas longest midka ugu dheer, find waxaad raadisaa the name magaca of the longest continuous carbon chain, silsilad markay sawran tahay meesheedii u dheer fiiri. Qodobka labaad fiiri, identify cadee the name of group attached, groupka ku dhegan yahay cadee to this chain, silsilada aad sheegtay waxa ku dhegan cadee. Lambarka saddexaad, number the chain, silsilada nambarayso consecutively oo starting adoo ka bilaabayo markaas adoo isugu xijinaa ka bilaabayo the end meesha u dambeyso next aynu u dhow markaas substituent groupka waxa lagu dhejiyey ama mid ku dhegan adoo u fiirinayo. Design sawir the locationka ama goobta of the each substituent group waliba mid walba ugu dhigan waxa ku dhigi karto tusaale alkane waxa ku dhigi kar methane ku dhigi karo, ethane ku dhigi karo, propane ku dhigi karo, fluorine ku dhigi karo, chlorine ku dhigi karo, bromine ku dhigi karto, iodine ku dhigi karto. Inta meesha ku dhigto tirso. Sidoo kale waxaad u fiirisaa by group and approximate the number and name, adoo sina markaas numberka sample calaamadeyso the name magac calaamadey ama sheego oo silsilad dheer aad sheegtay, list tir markaas ka bacdi a group in alphabetical order waxa ku dhegan markaas alphabetical order u tiri. Tusaale fiiri, haddii meesha ay ku dhegan tahay methane iyo propane haday ku dhegan tahay waxaad u fiirsaa markaas meth iyo bro yahay alphabetical order ABCD yaa soo horeeyo, M iyo B ABCD yaa soo horeeyo, B yaa soo horeyso, B da qaadanay markaas. sidoo kale lambarkii lixaad waxaan dhahnay the prefix horgalaha hadduu noqdo haday noqoto laba haday ku dhigto die haddii saddex ku dhigaan tiri haddii afar ku dhigaan tetra iyo etc wixii la mid ah. Use to adoon isticmaala markaas define several groups adoon groupyo fara badan isticmaalayo of the same kinds oo kuwa isku mid ah are not considered lama xiriira markaas when markii alphabetical order markaa u sameysad adoon la xiriir. qodobka toddobaad ee fiiri halogen substitute, halogenada noqon kara markaas waa periodic table markaa tagtid group waxa loo yaqaano halogens loo yaqaano. halogens waxa loo yaqaanaa fluoro, chloro, iodo, bromo astatine teamkaas ay noqonayaan. Easily waa si fudud commonly loo sameeyaa markaas by using loo isticmaalo markaas the name magaca fluoro F loo isticmaalaa, chloro Cl loo isticmaalaa, bromo Br loo isticmaalaa, an iodo oo la xisbaala marka ayaa loo isticmaalaa process ina uraan. fiir markaas waa sambaladii aan ku soo qaaday the prefix parent suffixka markaas anoo sameeyay markaas fiiri naming of alkane waxa magacaayna markaas alkane-ka general form of alkane uu leeyahay suffix code inta fiiri suffix code fiiri in uu wata parent gender table code fiiri kii koowaad waxa uu naqaanaa methane, kii koowaad waxa uu naqaanaa methane waa hab carbon iyo afar hydrogen waxaan dheynaa markaas methane aan dheynaa. kidka labaad waxaan dheynaa ethane waa laba xabo oo isheeg laba anoo qaacid u raacin fiiri yes qaacid waxa ku yaal markaas fiiri waxaan dhaanay C sub n H sub 2 n plus waxaan dhaanay 2 sameyn hay inta waxa ku yaal fiiri markaas inta waxa ku yaal fiiri hal xab kaarbono, inta waxa ku yaalo hal xab kaarboon iyo afar hydrogen waxa leeyahay markaas C sub n H sub 2 mo waxa leeyahay markaas kaarboonka meeqa wata labo, kaarboonka meeqa wata hal labo ku dhuf meeqa waay labo ku dar meeqa waay fiiri labo hal ku dhufo intaas waxay u taagan tahay numberka hal labo ku dhufo hal ku dhufo labo leeyahay labo ku dar afar abkaado meesha lagu keenay. sidoo kale ethane ayadana waxaan dhahnay waa laba xabo kaarboon iyo saddex xabo hydrogen waxaan leenahay markaas fiiri laba xab kaarboon labo waxaad ku dhufataa saddex ku dhufo meeqa waay labo saddex ku dhufo waa lix labo ku dar waa 8 inta meesha ay markaas ethane waa kana fiiri lix labo ku dar 8 waay.
sidoo kale mid saddex mid kale waxaan leeyahay propane mid kale waxaan leeyahay ilaa 10 xab loo xifdiyo 10 xab waxaan ka rabaa inaad soo xifdisaan si aad wada fahantaan waxa loo yaqaanaa methane ethane propane butane pentane hexane heptane octane nonane decane kuwa kale waxaa jira oo 20 ka lagu daro undecane dodecane tridecane tetradecane ilaa 20 xab waaye waa si cilmi ahaan ugu soo dari doona laakiin buugeen muqarrarkan oo muqoraayo insha Allah si casharada aysan idinku badan waxaan sameeynaa cashir inaan usoo dhigno maanta meeshaan kusoo adkumeynaa aad u maasantihiin next period aan soo imaano cashirka kale aad u maasantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته